أما سنتاي أبارة حلقة صلاة المغرب أي هيد كدب مركي جاري أي سارنايين كوح عيارتوية أو مركزي كسو بحي مقالة مقدشو ونسو سعودي دقمدا أفقو يقبل كشو الله هوسي أي رساسيين كوحو مركزي تاقنا وضلا وحانا انت بدن قوبتا أي كدعادي لأي شيء إني هيد حالك لو يقانو على مضى وانت بدن أيو بدن تاي ميلا يعيدما يستاقان halkaasi oo sidoo kale u dhow control waxaana la sheegay in gaarigu ay rasaaseeyeen kadib markii la sheegay in gaariga uu xoog ku socday Allah u naxariistay macalinka kooxda Al-Aqsa ayaa ku geeriyooday oo la yiraahdo UK waxa ku dhaawacmay laba ciyaartooy oo mid Al-Aqsa uu ciyaari jiray oo kamid ah kooxaha magaalada sidaas ayayna wax u dhaceen waa tahay marka sababta ka dambeysay in rasaasta lagu furo marka laga tago in gaarigu uu xoog goobta doonayay inuu ku maro ma ciidanka ama ragga hubeysnaa meesha taagnaa qaabcanka ay ama sababta ay u taagnaayeen maxaa lagu sheegay ma dhacbay geysanayeen ma goob jagboonta ay ahayd maxaad ku maqashay waa maasan tahay waxa xusud mudan in tan iyo markii canshuuraha laga joojiyay guud ahaanba gobolka iyo degmada Afgooye waxa soo badanayay dhibaatooyin ciidamo geysanaya kuwaasi oo inta badan habeenadii maqribka kadib wadooyinka istaagaya dhac u geysanaya gawaarida halkaasi maraysa haddii baabuurtu ay iska fahmi waayaan waxa markaasi lacag ay u baahan yihiin tani inta badan waxaa la leeyahay ciidamo ayaa rasaas ku soo furay xilli gaariga uu socday inkastoo aan la heli karin xaqiiqda dabcan sababta keentay rasaas in gaarigaas lagu furo walow inta badan xiliyadaasi gawaarida xoog ku socdaahi ay ciidamada rasaas ku furayaan maadaama ay iyagu markaasi u istaagayeen halkaasi si ay wax uga qaadaan gaariga iyadoo maalintiina aan halkaasi wadada mamnuuc ay ka tahay in lacag ay qaadaan dabcan sidii canshuurta loo joojiyay waxaa soo badanayay in dhibaatooyin fara badan habeenadii ay baabuurtu shacabku saaran yihiin ay la kulmaan mararka qaar dhac loo geysto xitaa mararka qaarna iyagu ay dhiibaan wax alla waxay markaasi ciidamada goobtaasi ku sugan ay weydiiyaan gartay marka rasaasta waqtigii ay ku fureen kadib gaarigii ma sii dhaqaaqayo muusan istaagin miya mise goobta ayaa laga soo qaaday dadka dhaawacmay meedkaba rasaasta markii ay furtay kadib gaarigii Afgooye imid waxaa inta Afgooye aysan imaanba geeriyooday macalinkii kooxda Al-Aqsa oo UK la dhihi jiray laba ciyaartooy oo ka tirsan kooxda Al-Aqsa iyo kooxda Ilman oo uu ciyaari jiray ayaa طبعا ku dhaawacmay oo hadda xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose marka xaaladda guud dabcan hadda waxa la leeyahay kooxda labadaasi qof ayaa dabcan ku dhaawacantay waxaana ku geeriyooday macalinka kooxdaasi mid kamid ah baada sports oo la xiriiray waxa uu sheegay in ilaa hadda sidoo kale aysan jirin wax markaasi war oo ka soo baxay arrimahaasi walow baabuurku ay rasaas ku soo fureen ciidamo taagnaa goob markaasi kamid ah wadooyinka qaybta calamada oo halkaas inkastoo control aan ahayn laakiin mararka qaar waa goob ay istaagaan ciidamo hal mise laba mise saddex oo iyagu dhac iyo mararka qaar lacag weydiista gawaarida wadada maraysa